الرحمن الرحيم marka hore waxaan salaamayaa dadweynaha Soomaaliyeed halkan naga daawanaya iyo bahda saxaafadda waxaana aan leeyahay jimco wanaagsan maalin jimco weeye saad sheegtay weeyaan waa run weeye xalayta waxa soo baxay war saxaafadeed ka soo baxay banka adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka oo ay wadajir u soo saareen si aad ogtihiin deen cafista muddo dheer baynu ka soo hadlaynay geedi dheer buu ahaa inkastoo geediyada adduunyada kale aan ka soo gaabnayn inagu ka soo gaabanahay haddana geedigaas wuxuu leeyahay meelo la isxisaabina buu leeyahay marka banka adduunka iyo hay'adda lacagta qaranku waxay baryahan mashquul ku ahaayeen in ay eegaan ay evaluate gareeyaan ay qiimeeyaan geedi socodkeeni halka uu marayo deen cafintii halka ay marayso inay marka shirar badan bay ku jireen shirar badan oo kalena way geli doonaan dhowrka weeyay usbuucay nagu soo socda marka kan shalay wuxuu ahaa qiimeyn la qiimeynayay halka Soomaalidu marayso qiimeyntaasi markaas aad aragteen waxa ay leedahay waxa weeye Soomaaliya wixii looga baahnaayo oo dhan way gudatay way ka soo baxday waxaan aniga ogaalkay ay tahay shirkii muxuu ahaa ay isku yimaadaan labadooda soo wada saaraan markaliya hay'adda adduunka lacagta adduunka waxay shirtay 12kii bisha shalay maadaraad World Bankuna shalay buu shiray labadooda isla markii shirku dhamaaday waxay soo saareen qaraarkaasi soo saareen waxay tahay waxa weeye macnaheedu geedi socodkii aan soo wadnay si fiican buu socdaa waxaana qarka loo saaraya markaa deen cafiskii baa qarka loo saaraya saas intaasuu nuxurkeedu intaa weeye waa mahadsantahay wasiir maadaama warbixintan ay soo baxday oo ay sheegeen in Soomaaliya barta go'aan qaadashada deen cafinta ay u qalanto goorma laga fadhiisanayaa ugu dambeyn oo la gaaraya barta go'aan qaadashada ama decision pointiga oo laga wada hadlayaa in deymaha laga cafiyo Soomaaliya waxa aynu wada ogsoonahay saddex qaybood ayaa lacag inagu leh Soomaalida ku leh saddexda qaybood oo loo kala qaado baananka adduunyada World Bank ka mid yahay IMF ka mid tahay African Development ka mid yahay saddexdaasi waa hormood weeye iyaga runtii ka hormooda iyagaana dariiqa deen cafista sameeyay 96kii marka laga soo bilaabo deen cafista sameeyay groupkaasi waa groupka kale waxa weeye qolada Paris ku bahowday Paris Club la yiraahdo iyo qolo kale oo saddexaad oo la yiraahdo non Paris Club labada kale waxay sugayaan saddexda institution waxay qabtaan ay sugayaan waa inay iyagu yiraahdaan Soomaaliya arintay waday waa ku qanacnay waa inay yiraahdaan marka kuwa kale way daba socdaan marka labadoodu shirar badan baa kan waxa kii ugu horeeyay labadoodu shiraan waxa ku xiga African Development Banka Africa horumarinta Africa oo isaguna dhawaan shiri doona waa ku xiga waxa kale oo ku xigi doona mar haddii IMF iyo World Bank soo saareen malahoodu waxa uu yahay qaraarkoodu wuxuu yahay inay Soomaaliya deen cafintii meeshii looga baahnaa marayaan ay mutaysteen in deynta laga daayo xarafkaas hoosta laga xariiqaya Soomaaliya waxay mutaysatay deyntii baa laga dhaafay wali ma waxay mutaysatay wixii looga baahnaa dhan ay fulisay in deynta laga cafiyo taas horta shirarka yihiin shirka ku xiga marka waxa weeye 12kii way xaqiijiyeen inaan eligible nahay amaan mutaysanay waxa ku xigaya marka waxa weeyaan in baan waliba goonidiisa oo shiro oo deen cafintiisii galo ayaa ku xigaya World Bank waxa weeyaan 27ka bishan aan ku jirno maalinta Washington maan tagaynaa hadii la yiraahdo waxaan la soo seexanaynaa deen cafinta la seexanaynaa African Development Banka horumarinta Africa isla 26ka maalin buu ka horeeya waa saddexdooda way isdaba socdaan IMF tuna yar buu ka dambeynaya laan IMF to arrimahaas ay wax ku cafiso ya ka adag say wax ku cafisaa tan kala ka adag yani macni waxa weeye lacagtii la inagu lahaa in meel laga soo ururiyo weeyaan dibadda lacagtiisa lagu bixiyo marka iyagu waxay shiri doonaan in kastoo ay shalay gaadheen in deen cafintii ay diyaar loo yahay haddana iyagu waxay shiri doonaan bish soo socota March ayay shiri doonaan marka decision point ku wuxuu noqonayaa markay saddexdooduba shiraan
ay saddexdooduba isku dhamaystir ka ugu dambeeya shiro ayaa la odhanaya waxa weeyaan decision point macnaheeduna yahay waxaa laga shiray qaraarna la gaadhay in deynta la cafiyo. waayo wasiir marka wadamada Soomaaliya deymaha kule hadda hay-adihii ugu waaweynaa baa hadlay oo bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka marka talada iyada ah iyo go-aanka iyaga ah ee ku saabsan in Soomaaliya deynta laga cafin karo maxay ka taraysaa oo tala jeedintooda in Soomaaliya wax fiican ay ka sameysay dib u habeynta dhaqaalaha oo deymaha laga cafin karo wadamadii kale deymaha lahaa maxay ka taraysaa taladaasi maxay ku kordhinaysaa? waxay ka taraysaa waxa weeye wada la isku raacay weeye wadadani cidana ka leexanay wada adduunku isku raacay weeye 39 wadan oo adduunka ah ayaa loogu talagalay oo aan iska bixin karay deymaha ayaa loogu talagalay waxayd inta maanta kii 37aad ee ka baxa ayaynu noqonaynaa labaa soo hadhaya imika waa inaga iyo Suudaan iyo Eritrea uma hadhay inta kale dhani jidkaasay soo mareen macnuhu markaa waxa weeye qolo waxa lagu heshiisiyaa wadada qolo waliba qaraarkay qaadanaysa wuxuu noqonayo iyo heshiis lagu yahay IFIs ka qolooyinka la yiraahdo financial institutionska ayaa horta waxay gaarayaan in deynta Soomaaliya laga dhaafo shirkooda galayaan boardkooda la shirayaan qolo waliba waxay dhaafaysaa way sheegayaan waxa kale halkay ku qarinayaan bay sheegayaan qolo waliba processkay galayaan 31 bisha March waxa shareeyay Paris Club-ka oo qolada kale ugu weyn way in fact ugu lacagta badan Paris Club-ka Americanka ku jira Europeans oo dhan baa ku jira lacaga intooda badan halkaas ay yihiin ayagana waxay shirayaan hadii la yiraahdo Paris Club waxa shareeyay bisha 31 March halkaas anaguna tagi doonaa halkaas negotiation-kooda ku gali doonaa halkaas iyaguna sheegi doonaan arrimahooda ay u talinayaan laakiin Baytul Qasiidku wuxuu yaaba sheegaya Baytul Qasiidku waxa weeye deyntaasi mar hadii decision point kala gaaro laga hor qaadaya ya intaas dadku inay fahmaan tahay waa laga hor qaadaya waa la leexinaya ya waa la leexinaya dabeetana qolo waliba habka iyada u dhaafayso iyo processkeeda galayaan laana intaas oo wadan oo fara badan bayna wadan waliba qaanuun buu leeyahay carabtu qaanuuna gooni iyaguna leeyihiin carabta iyo institutionskooda islaamka iyo institutionskooda islaamku waxay leeyihiin Islamic Development Bank oo islaam oo dhan wada leeyahay oo dhowr iyo 13 waxay nagu milyan iyaguna waxay leeyihiin nidaamkooda laakiin waxa la isku raacsan yahay waxa weeye dad iyo hadii wadada dalku soo maro oo halka soo gaaro deynta waa laga leexinaa qolo waliba saad adigu waxa u xaliilayso ayaad u xaliilaysaa baa looreeyaa waxay noqonaysaa in la inaga hor leexiyo ee wixii lagu falay lagu falo inagana jidka aan ku taagnaano labada sare soo socda jidka aan ku taagnaano weeyaan laana waxa la diidayaa inta deynta laga cafiyo inta jidka iskaga baydho waxa doonta iska samayso ilaa lacag dad leeyahay baa laga dhaafay waqti dadkii waxba u qaban weydo waxyaalaha ugu importansan waxa weeyaan deynta laga dhaafay waxa laga dhaafaya waxa weeyaan dadka puurka ama dadka muxuu ahaynaan tabaalaysan fiqiirka ah inaad wax loo qabto in lacag la geliyo muxuu tacliinta iyo caafimaadka wixii la halmaanay lacag la geliyo haddaad gelin weydo dhibaato lagu keenaya laga yaabo lacagta in lagu soo celiyo leena ma isluub ma samaysan dad berita halka tagto inta soo bilyan hadana soo amaahato ya irresponsible ba tahay baa lagu oranayaa